hay-adda Forum Seed oo wadankan Sweden u qaabilsan caawimada dibadda ayaa joojisay laba mashruuc aad u waaweyn oo ka waday Soomaaliya iyo Somaliland. mashaariicdan oo ay kala shaqeynaysay qurba joogga degan Sweden ayaa waxay soo socdeen ilaa iyo sanadkii 2015. mashaariicdan ayaa ahaa kuwa ay qurba joogga kala duwan iyo hay'adahoodu ay fulin jireen isla markaana ay uga qayb qaadanayeen horumarinta dalkooda. mashaariicdan oo ahaa kuwa aad u ballaaran isla markaana ahaa kuwa wax badan ka tarayay dhinacyada horumarinta arrimaha bulshada ayaa waxa maalgelinaysay dawladda Sweden laga soo bilaabo ilaa iyo sanadkii 2015. labadan mashruuc ee istaagay oo ahaa kuwa si gaar ah loogu maalgelinayay Soomaalida ayaa kala ahaa ama lagu kala magacaabi jiray Somali Diaspora Program iyo Somali Business Program. dhinaca kale hay-adda Forum Seed waxay ku lahaayeen xafiiskooda ugu weyn magaalada Hargeysa iyadoo xafiisyada ka furan Muqdisho iyo Garowe ay ahaayeen qaybo faraca ama branch taasoo keeni karta in arrintan ay saameyn ku yeelato oo xafiisyada la xidho ama shaqadooda aad loo yareeyo kuwaasoo ay ka shaqeyn jireen dad aad u badan. haddaba arrintan waxaa noo faahfaahiyay mudane Cali Xasan oo ah aqoon-yahan ka shaqeeya hay'adaha isla markaana wax badan kala socday hawshan oo maanta aanu ku soo booqanay xafiiskiisa magaalada Örebro ee wadanka Sweden. labada mashruuc ee istaagay waxay kala yihiin waa Somali Business Program iyo Somali Diaspora Program. Somali Business Program wuxuu ahaa mashruuc loogu talagalay oo ujeedadiisu ahayd sidii qurba joogga joogtay Sweden ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta dalkii ama dib u dhiska dalkii. mashruucaas wuxuu ahaa runtii mashruuc loogu talagalay qurba jooggu in ay ka bilaabaan businessyo yaryar iyo ganacsi si markaa ay shaqo abuur ugu sameeyaan dhalinyarta khaasatan iyo haweenka. waxaa qaybaha ama sectorska lagu maalgelinayay mashruucan waxaa kamid ahaa qaybahaas kalluumaysiga, beeraha iyo xoolaha, communicationka iyo energy-ga. marka runtii dhalinyar badan iyo dad badan oo qurba joogga oo halkan Sweden jooga ayay runtii fursad ballaaran u noqotay oo doonay runtii inay tijaabiyaan mataqaanaa fikir maxalada idea ama fikir business oo ku jiray marka kana faa'iideeyay runtii oo ku abuuray ganacsi iyo businessyo kala duwan wadankii. taasina waxay keenaysaa runtii imiga markii la joojiyay in ay mataqaanaa istaagaan arrimahaas oo dhan. mashruucan kale isna istaagay ayaa wuxuu ahaa mid ay ka wada shaqeynayeen hay'adaha halkan Sweden jooga iyo hay'adaha wadanka gudihiisa jooga kuwaas oo ku saabsanaa inta badan arrimaha mataqaanaa human rights-ka oo kale tusaale ahaan ilaalinta deegaanka, dimuqraadiyadda, dawlad wanaagga. marka taasoo mataqaanaa partnership ay ahaayeen hay'adaha halkan Sweden jooga iyo mataqaanaa hay'adaha dalkii jooga. taasina barnaamijkaasina laftigiisu wuu istaagay inkastoo qayb kamid ah barnaamijkan dambe ay weli sii socon doonaan laakiin haddana waxa isbedel waxay noqonaysaa waa la yareeyay maadaama budgetkii uu yaraaday oo la yareeyay ay waxay noqonaysaa inay yaraadaan hay'adihii ka shaqeynayay laftigooda arrimahaas. taasi waxay keenaysaa dabcan qurba joog badan oo halkan joogay Sweden oo runtii ka qayb qaadanayay horumarinta iyo sidii dalku mataqaanaa dib loogu dhis lahaa in ay activity-gii iyo shaqadii ay ka wadeen ay halkaa runtii gaabis noqoto oo ay yaraato. sababta markaa mashruucan loo joojiyay ayaa waxaa runtii ay hay'aduhu sheegeen laba arrimood oo ah kow inaan mataqaanaa heerkii laga rabay ama resultkii la rabay inaan runtii la helin oo aan la gaadhin. ta kalena adigu dawladda Sweden waxay sheegtay in lacag badan ay ku baxday mataqaanaa maxaa la dhahaa administrationka iyo mataqaanaa iyo adiga mataqaanaa malaha socdaalkii wixii magaranaysa. marka adiga goalkii laga rabay inaan ama mataqaanaa hadafkii laga rabay inaan la wada gaadhin laakiin weli anaga rajaan ugu jirta oo waxa weeyaan kulli kulamana waanu la yeelanaa maxaa la dhahdaa hay'adan Sweden ee Forum Seed iyo maxaa la dhahdaa iyo hay'adahan raba inay maalgeliyaan dalkii anaga oo markasta uu sheegi doono inay baahida wali jirto
dalkiina loo baahan yahay in runtii dee laga shaqeeyo horumarkiisa hadday noqoto la dagaalanka shaqo la-aanta sidii fakhriga oo kale loola dagaalami lahaa dowlad wanaagga dimuqraadiyadda marka anigu hawsha waan sii wadaynaa waxaan rajaynaynaa runtii in ay Sweden sii wado maalgelinta iyo shaqooyinka wanaagsan ee positive ka wadaan horumarkan quruxda badan ee ka wadaan dalka xukuumadda Sweden iyo hay'adda forum sidoo iyadu u qaabilsan caawimooyinka dibadda haddii aynu faalo yar ka bixino daawadayaal sida waliba aqoonyahan Cali Xasan oo isaguna noo sharaxay xukuumaddu waxay samaysay barnaamijyo fara badan oo ku saabsan dadka qurba jooga ah sidii ay wadamadii ay ka yimaadeen ay wax uga qabsan lahaayeen iyadoo u kala qaaday laba dhinac oo ah dhinaca ganacsiga oo iyadu intay dadka lacag la siiyo qofka haysta dhalashada wadanka Sweden oo kala qiyaastii inta la siiyo lacag dabadna la yiraahdo wadankaagi tag mashruuc ka samee haddii qofkaasi mashruuca ama meherad uu sameeyo ama uu beer sameeyo ama uu waxyaabo faa'iido dadka uu sameeyo oo ganacsiyo isagu ku ganacsanayo taas waxay keenaysaa in haddana xukuumaddu ay u sii kordhiso lacagta haddii qofkaasi mashruucu uu hirgalo waxa jira dhalinyaro badan oo dalkii guud ahaan deegaanada Soomaalida oo dhan tagay waxay tageen Somaliland waxay tageen Puntland waxay tageen Soomaaliya iyagoo ka sameeyay meherado intay lacagta halkan ka qaat barnaamijka runtii dhalinyaro aad u fara badan ba ka faa'iideystay iyadoo meherado fara badanna ay sameeyeen taasoo keentay in qofkii uu qurbihii ka raysto wadankiisii uu tago lagu maalgeliyo isla markaana uu qarash iyo masaariftiisa halka uu kala soo baxo iyadoo xukuumadda Sweden sida warkaba aan ku sheegnay ay waday barnaamijkan ilaa iyo sanadkii 2015 iyadoo sida sababta koobaad ee lagu sheegay in loo joojiyay dhaqaalihii dadka Soomaalida lagu maalgelinayna uu yahay in ay sidii ay doonayeen aanay u dhicin oo laga yaabo in dad badan intay lacagta qaataan ay wadankii la tagaan isla markaana ay isleekaan waayaan mashruuca ay halka ka sameeyeen iyo lacagta ay qaateen oo looga baahnaa qiyaastii in mashruuca ay sameeyeen mid ka ballaaran ay sameeyaan ama laga yaabo in mashaariicdii faraha badnayd ee dadkii percentage marka la eego ama isku celcelis marka la eego dadka lacagta qaatay iyo dadka wax sameeyay ay aad u kala bataan oo laga yaabo in yar ay wax samaysay xukuumadda Sweden iyo hay'adda forum sidba sababta ay u joojiyeen waxay ku sheegeen kulliba laba sababood oo waaweyn sida warkaba aynu ku xusnay ta koobaad oo ah in sidii ay doonayeen aan u sameeynin iyadoo macnayaal fara badan yeelanaysa arrintaasi oo loo macnayn karo in lacagtii dadku intay qaateen dabadna mashruuc ay ku sameeyeen waayeen taas waa mid weeye waxa kale oo dhici kara in qofka lacagtii la siiyay mashruucii leeyahay ku sameeyo mid ka yar inuu ku sameeyo oo iyaduna ay u arkaan in sidii la doonayay aan wixii loo qaban iyadoo arrimahaas oo dhanna ay keeneen in la joojiyo ama dib looga fiirsado mashruuca ballaaran ee dad badan oo Soomaaliyeed ay ka faa'iideen ee muddada dheer soconayay barnaamijka koobaad ahaa Somali Business Program oo lacag far badan xukuumadda Sweden runtii ay ku bixisay oo la doonayay dadku inay ka faa'iideystaan oo shaqo abuur ay u noqoto waxyaabaha lagu maalgelinaya ama dhinacyada lagu maalgelinayna sida aan soo sheegnayba waxaa kamid ah beeraha iyo kalluumaysiga iyo caafimaadka iyo tamarta ama energy-ga dad badan way ka faa'iideysteen runtii waxyaabo fara badan way ka qabteen laakiin sida aan xusnayba Sweden iyagu waxay dhahdeen sidii aanu doonaynay umay socon arrintaasi taasina waa keentay in la joojiyo mashruuca labaad ee lagu magacaabay isagana Somali Diaspora Program oo Sweden ay ugu tala gashay in qurba jooga iyo aqoonyahanka qurbaha jooga ay wadankii ku noqdaan isla markaana ay NGO-yadooda ama hay'adaha iyagu gaarka u leeyihiin lagu maalgeliyo lacag lagu siiyo iyagoo wadankii markay tagaana ka shaqeynaya ama wacyigelin ka sameynaya arrimaha xuquuqul aadamaha ama xuquuqul insaanka iyo cadaaladda iyo nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda taaliftigeedana xukuumaddu waxay sheegtay in sidii ay doonayeen aanay u dhicin oo laga yaabo inay doonayeen maadaama lacag aad u fara badan ay ku bixiyeen in arrintu intan ay in ka badan la sameeyo ay ahayd
Sweden guud ahaan marka la eego waxay ka mid tahay wadamada ugu horeeya caalamka ee xilka weyn iska saaray in arrimaha Soomaalida iyo ugu talagalay mashaariic aad u far badan oo ay ka fuliyaan dhammaan deegaanada Soomaalida sida Somaliland iyo Puntland iyo waliba Soomaaliya. mashaariicdani waxay ahaayeen qaar dhiirigelina oo dadka qurbo joogna lagu dhiirigelinayo sidii ay dhaqdhaqaaq u sameyn lahaayeen dhinacyada ganacsiga iyo waliba dhinaca horumarinta dalkoodii sidaas oo kalena ay ugu talagaleen in wadanka gudihiisii dadka joogana ay ka faa'iideystaan iyagoo sameynayay inay dhaqdhaqaajiyaan ama ay ka shaqeysiyaan NGO-yada iyo hay'adaha yaryar ee ay dadku ku leeyihiin wadankii iyagoo doonayay inay ka arrimaha haweenka iyo dhalinyarada iyo waliba waxbarashada oo ay culayska saarayeen sidii looga horumarin lahaa dadkii. Sweden sidoo kale waxay xafiisyo ka furatay xafiiskan forum sidoo ka furtay magaalada Hargeysa iyo magaalada Garowe iyo magaalada Muqdisho iyagoo halka kala socday macaawimooyinka ay bixiyaan iyo mashaariicdan ay bixinayaan iyo sida u socdaan iyo dadku inay mashaariicda hirgeliyeen iyo in kale taasoo ay kula socdeen dhaqdhaqaaqa cid kasta oo lacag la siiyo iyo waxa ay qabato. xafiisyada Sweden waxa uga shaqeeya dad Soomaaliyeed oo iyagu ka tagay Sweden oo loogu talagalay in madax ka noqdaan xafiisyada iyo waliba dad kale oo ay ka qorteen wadanka gudihiisa oo iyaguna shaqaale ka ahaa iyagoo isku dabaridayay hawlaha maalinlaha ah ee xafiiska. haddaba arrintan iminka soo baxday runtii waxay dhabarjab weyn ku noqon doontaa dadka Soomaalida iyo mashaariicdii la siinayay qaadanayeen ee wadankii la tagayeen iyadoo ay jireen muddooyinkii ugu dambeeyay mashruucan Sacuudiga laga soo bilaabo ilaa iyo 2015 oo muddo 5 sanadooda inay dad badan xitaa ay ka guureen wadankan Sweden oo ay u guureen dalkii iyagoo mashaariicda qaatay oo ka samaystay ama beero ama kalluumaysi ama meherado wanaagsan oo ay ku noolaan karaan. ilaa imika lama garanayo ama ma sheegin xukuumadda Sweden xilliga ay dib u furi doonto laakiin imika waxa kaliya ay bogoodana ku soo qoreen inay iyagu imika joojiyeen labada mashruuc. dadka Soomaaliyeed ee Sweden ku dhaqan waxay runtii in badan isweydiinayeen oo qaar badan ay u koorgaleen sida ay u shaqeeyaan mashaariicdan iyagoo daneynayay inay qaataan mashruuca si ay wadankii hawl uga fuliyaan taasoo dad badan arintaasi ay u hirgashay. waxa kaliya imika dadka Soomaaliyeed markay warkan maqlaana ay naawili doonaan oo ay rajayn doonaan in goorta Sweden ay dib u furayso mashaariicda noocaas oo kala si ay halkii uga sii wadaan ka faa'iideysigii ay ka faa'iideysanayeen. warka iyo waliba warka faaladiisaba waxa idin soo gudbinayay anigoo Barkhad Cabdilaahi Maxamed oo ku sugan stuudiyaha wadanka Sweden. daawadayaal inta aynu dib u kulmayno dhamaantii waxaad leenahay nabadgelyo.